السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا warbixin xiiso leh oo gaaban oo aan ku eegi doono sagaal kamid ah hogaamiyaasha qaaradda Yurub oo aan dhalin wax caruura. Sagaalka hogaamiye ayaan rabnaa maanta inaan soo qaadano, balse intaynan bilaabin haddii aad ku cusubtahay channelkeena Shani Films, fadlan subscribe saar si aad ula socoto qaalada dambe iyo waliba kuwii hore. aan ku bilaabo hogaamiyaha koobaad waa madaxweynaha wadanka Faransiiska wadadiisuna waa 40 jir wuxuu madaxweynaha Faransiiska noqday sanadkii hore 40 jirkan ayaa guursaday macallimadiisii oo da'deedu tahay 65 jir waxayna ka weyntahay 24 sano isumayna dhalin wax caruur ah. hogaamisada wadanka Jarmalka waxay dhalatay 17 July ee sanadkii 1954 waxayna hogaanka dalka qabsatay 22 November ee sanadkii 2005. Angela oo kamid ah hogaamiyaasha adduunka ugu awooda badan waa xaas la qabo ninkeedana waxay isguursadeen sanadkii 1998 iyaduna wax caruur ah ilaa haatan ma dhalin. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Theresa May waa 62 jir waxayna xukunka dalka qabsatay sanadkii 2016 kadib markii Britain ka baxday Yurubta Midoobay ee magacooda loo soo gaabiyo EU. Theresa May oo saygeeda Philip isguursadeen sanadkii 1980 ayaa kamid ah hogaamiyaasha ugu awooda badan Yurub ee aan caruurta lahayn. Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga waa 46 jir xafiiska hogaamineed la wareegay sanadkii 2016 xaaskiisana waxay isguursadeen sanadkii 1988 iyaguna waxay kamid yihiin hogaamiyaasha reer Yurub ee aan caruurta lahayn. aynu soo qaadano hogaamiyaha shanaad oo ah ra'iisul wasaaraha Holland oo lagu magacaabo Mark Rutte da'diisu waa 51 jir dhashay sanadkii 1967 isaguna wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha aan caruurta dhalin. ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven wuxuu xukunka qabsaday October 2014 waxayna sanadkii 2003 isguursadeen xaaskiisa oo lagu magacaabo Ulla Stefan isaguna ilaa iyo haatan caruur ma dhalin. ra'iisul wasaaraha dalka yar ee Luxembourg waxay xaaskiisa isguursadeen 2015 inkastoo uu qabo nin haddana wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha dadka metela ee aan wax u bad lahayn. hogaamiyaha Scotland oo lagu magacaabo Nicola waxay xukunka qabsatay sanadkii 2014 waxayna saygeeda isguursadeen sanadkii 2010 iyaduna ilaa haatan wax caruur ma laha. ugu dambeyntiina madaxa European Commission-ka waa hogaamiyaha sagaalaad ee Yurubiyaanka ah ee aan isaguna u wad lahayn. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay sababta keentay sagaal hogaamiyeed oo kamid ah kuwa ugu awooda badan qaaradan inaan dhalin wax caruur ah. sidoo kale su'aasha kale isweydiinta mudan ayaa ah saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa bulshada ay hogaamiyaan maadaama inta badan lagu daydo madaxda. dhanka kale khubarada qaar ayaa waxay aaminsan yihiin inay noqon karto dabargo bulsho. ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada.